waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inay nala ka dhageysanayo sagaalka gobol oo Puntland iyo Soomaaliya barnaamijkeenan oo ah barnaamij weyn oo laga xuso adduunka oo dhan sanad walba sanadkan barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa insha Allah in ay isu soo gudbino waxyaalo inoo qabsoomay waxyaabihii caqabadaha inagu ahaa iyo waxyaabaha rabna insha Allah hadii Ilaahay inaan tiigsano ana ku hadlay magaca wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska sanadkan wasaaraddu waxay ugu talagashay in gabdhaha haldoorka iyo gabdhaha aqoon-yahanka iyo gabdhaha waxgalka iyo gabdhaha barnaamijyada ku guuleystay sida barnaamijyada waxbarashada oo kale gabdhihii ku guuleystay gabdhihii siyaasadda ku guuleystay gabdhihii ku guuleystay caafimaadka gabdhihii ku guuleystay xirfadaha inay inoo soo bandhigaan haldoorka inay inoo soo bandhigaan waxyaalaha ku guuleysteen siyaabaha ay ugu guuleysteen iyo siyaabaha loo mari karaba waxa muhiim inoo ah inaynu qaadano qoladeena dhalinyarada inaynu qaadano dadka role modelka inoo ama dadka doorka muhiimka bulshada ku soo yeeshay siyaasiyiinteena iyo aqoon-yahankeena waxyaalaha inoo soo gudbin doona inaan dhagaha u furno isla markaana aan qaadano steps-ka ay qaateen waxaan u mahad celinayaa wasaaradda haweenka oo maanta isugu kaaya yeedhay inaan nagu abaal mariso waxqabadkayagii oo wasiiraddu hadda ay noo sheegtay wasiirada ku-xigeenku ay noo sheegtay aad baan ugu mahad celinayaa wasiiradda waxa weeyaan qofku ninku tabay kaama tagin baa la yiri gabdhaha sagaalka gobol ee Puntland ahmiyadda ay soo jeedisay wasiiradda ama wasiiradda kale ay jeedo iyo waxqabadkoodii lagu tibaaxay waan ka mahad celinaynaa midda aanu maarta isugu nimaadnana waa midaas oo kaleeto inaanu maanta oo kaleeto qofkii wax taraha ka kalena wuu ku dhiiranayaa birta ka maalin gabdhaha yaryarka oo aqoon-yahanka in lagu abaal mariyo waan soo dhaweynaya anu hadaan ahay ururka haweenka gobolka Mudug haweenku waxay u istaagnaayeen muddo dheer badbaadinta bulshada dhalaanka iyo qoyska iyo horumarinta caruurta waxbarasho u diridooda nolol korintooda noloshooda iyo abaabintooda intaba haweenka qayb weyn ayay ka qaateen waxay haweenku qayb ka qaateen haynta iyo ilaalinta kobcinta dhaqanka Soomaalidu ay leedahay dhaqankeena islaamka ee diinta islaamka oo yacni ay hayaan iyo waliba iyagiyo caruurtii iyo maartay dhaqankii sii wada ilaalinta dhaqankooda ayagoon ku ceebeysnayn maanta ma aanan soo gaareen niyadna uma aanan yeelaneen haddaanan gabdho noo kaca aanan helin runtii haween badan baa wax soo qabtay siyaabo badan kuwa waxbarashadii naga taakulay kuwa siyaasadii nagu dhiirigeliyay kuwa deegaankii runtii u noqday maaragtay badbaado ilaa badbaado leh laakiin badbaado u noqday intaasoo dhan qolo walbaba kuwa fidinta diintii door ku yeeshay intaasoo dhan qaybaha iskala duwan oo dhan waa qarsoon yihiin marka sanadkan waa sanadku wuxuu nooga duwan yahay bandhigid haweenku maxay yihiin haweenku hal door ma leeyihiin taariikhoodii maxaa laga xasuustaa maxaa dhaxalgaloo la ay maaragtay ka haraya ay higsanaysaa gabadha maanta jirta ama mid soo barbaaraysa marka taasay sanadkan sanadaha nooga duwan tahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa inaan guul ku gaaro iyo caafimaad